السلام عليكم soo dhawaada asxaabta soo dhawaada channelka Nasiir Graphics hadaba ma tahay ruux jecel barashada graphic design-ka hadii jawaabtaadu ay tahay ha halkani waa hooyga barashada graphic design-ka Nasiir Graphics waxa uu diyaar ku leeyahay channelkani mar waliba inuu ka haqabtiro baahidaada dhanka graphic design-ka hadaba hadii aad dareemaysid xirfadda barashada graphic design-ka ku soo hiro halkan oo asxaabtaadana la wadaag channelka Nasiir Graphics haddii adigu aad ku cusub tahay channelka oo ay tahay markay kuugu horeysay ha ilaawin subscribe inaad saarato sidoo kalena muuqaalada channelka mid u daawo oo wax badan ayay ka anfici doontaa xirfadaada dhanka graphic design-ka balanteenu waa be a professional man noqo qof xirfad leh si aad iskaaga wax u qabsato وهجاج isku soo noqod wacan oo wanaagsan ayaan idin leeyahay asxaabta mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkeenan maanta waxa aynu ku baranaynaa sida loo sameeyo Happy Independence Day maalmaha xorriyadda waxaanu aragnaa in dadka tahniyado fara badan ay isla weydaarsadaan oo isku diraan qofba markaasi isagoo qofka kale la wadaagayo design qurux badan oo markaasi maalinta xorriyadda soo marka hadda yar horteena waxa ka muuqda kooda luulio oo design-keedu aad u qurxoon yahay marka adiga iyo anigoo waan isla sameyn doonaa design-kan hadda yar horteena ka muuqda waxaynu ku sameynaynaa waa photoshop-ka aad doontid isticmaal waxa laga yaabaa asxaabta qaar ama ardayda qaar in ay isleeyihiin photoshop-ku armiyuu kala duwan yahay maya kalama duwana photoshop waa photoshop soo marka waa uu kala farshan dambeeya oo kaliya waxaad tagaysaa file waxaad tagaysaa control n waxaad leedahay ama control n ama file tag new soo marka waxaa ku imaanaya dialog box-kan ayaa ku imaanaya meeshan document type-ka ay ku qoran tahay ayaad furaysaa waxaad ka dhigaysaa custom soo halkan pixel weeye halkana waa pixel ha ku ahaado kor waxaad ka dhigtaa 1920 cabirka height-kana waxaad ka dhigtaa 1080 resolution-ka waxaad ka dhigtaa 150 ama 300 labadu waad isticmaali karaysaa soo okay aan leenahay warqad cad ayaa ku imaanaysa warqadda cad markay ku timaado waxaad tagaysaa text layer ama text ayaad tagaysaa meesha kore farta waxaad ka dhigataa impact ka dhigo fartan impact loo yaqaano ayaad ka dhiganaysaa okay halkan waxaad yeelaysaa halkan baad klik ku siinaysaa number 1 ayaad qoraysaa kadibna control A baa leedahay control A markaad tiraadid halkan ayaad imaanaysaa oo waad jiidaysaa sidaas ayaad u weyneynaysaa kadib move tool-ka tag okay ku dheh dhexda ku soo aadi sida ugu soo aadi soo marka adigoo shift qabo kadib hoos u jiid sida u weynay haddana shift qabo kor u jiid soo marka meelaha ku aadi dhexda ku aadi kadib waxa leedahay tick saar okay dheh confirm ku dheh okay kadib waxa leedahay mar kale text tag haddana halkan meel banaan click ku sii farta dabcan aad bay u weyn tahay oo markaana waan yareynaynaa hoos u soo yarey oo ilaa waxaad keentaa 40 meelahaas keen kadib caps looga daaro waxaad qortaa luulio sidaa u qor kadib waxaa leedahay control A mar kale sii yaree oo qaybtaasi kore ka yaree kadib move tool-ka tag okay ku dheh soo drag garee oo halkan keen kooda luulio
so mar kale haddana fartan oo maxaan ku yidhahdaa Lulio ayaad layerka Lulio ayaad tagaysaa oo waxaad leedahay control J copy aad ku sameynaysaa kadib move toolka inuu ku saarnaado weeye move toolka waad dareemaysaa kadib drag garay oo xagga u jiid kadib meesha layerka ima loo mar kili ku sii waxaad qortaa 1960 kadib control A dheh sorry 1960 kadib control A dheh oo weynee sida u weynee sida marka u weyneysid move toolka tag okay ku dheh soo marka geeskan aad imaadid si muuskaagu sidoo noqonayo fiiri haddaan meel banaanka tago sidoo noqonaya waa iska caadi markaan geeskan imaado sidoo noqonaya fiiri xogaa tuur ayuu yeelanayaa soo maahan okay markuu sidaa yahay oo goobada ama tuurtaayada uu yeesho waxaad sameynaysaa shift qabo shift adoo haya sida urug sorry shift adigoo hayo sida wareej okay dhaxda markuu tago asaa is celinaya ma fahanta kadib sii daa shiftiga ee geeska iyo muuska wada okay soo drag garay marka meelahan keen aad xogaa bay nooga weynaatay layerka textiga ku laabo laba mar kili ku sii okay waxaad tagaysaa horta tigtan meesha saar hadduu kaa diido laba mar inuu kili qaato enter dheh ama waxaad tagtaa meeshan tag labadaskii ku ron halkan kili ku sii ama enter ku dheh okay meeshan hadda imaa marka layerka 1960 laba mar kili ku sii okay wax yar aan yareyno marka soo marka move toolka tag kadibna okay dheh soo halkaa u jiid aragta somaa okay Lulio ayaan haddana mar kale copy ku sameynaynaa laba qaabba copy waad u sameyn karaysaa alta qabo oo jiid marka alta markaa qabatid muuskaaga fiiri waxaa kasoo hoos baxaya muus yar oo cad ayaa kasoo hoos baxaya ama ma ahan miya waxaa kaaga fudud control J labadaas qaab waa sameyn kartaa marka hadda control J haddayaan sameynay hadda waxaan sameynaynaa alta inta qabano ayaan marka muuska yar oo cadaanka uu ku soo baxo ayaa drag gareynaysaa jiidaysaa waa copy soo marka meesha layerska ima waa Lulio copy soo ma jeedid Lulio copy ayaad dusheeda laba mar kili ku siinaysaa soo halkan ima marka waxaad u jeedaa waa ay kugu highlight gareysmatay markay sidaa kugu highlight gareysmato waxa aad sameynaysaa marka qoraalka waa bedelaysaa okay Somalia Independence Day Somalia Independence Day soo fahmin Somalia Independence Day ayaad halkan dhiganaysaa okay marka Somalia Independence Day ayaad saas ku sameysay soo marka Somalia Independence Day wax yar ayaad ku daraysaa oo hadda farta waa 14 ilaa iyo 16 meelaha gey okay marka intaas sameysid xogaa yar meesha dhig okay bis markaas kadib waxaad tagtaa halkan ima oo rectangle tool ayaan isla imaanaynaa midka ugu koreeya rectangle toolka ayaa ku dhifanaysaa halkaa ayaad sidaa ugu drag gareynaysaa soo marka waxaa laga yaabaa in dialog boxkan uu ku soo boodo haddii uu ku soo boodo waa isticmaali kartaa laakiin xogaa waxaan diidaa inaad ku wareertaan oo halkaa baas ka taabanaysaa geeska waad iska xiraysaa soo marka kaas markuu sidaa kugu dalban yahay oo layerkuna uu isaga ku saaran yahay waad soo dhaqaaqaysaa waxaad imaanaysaa halkan rectangle-kan oo isaga ku saaran yahay waa waxaysaa halkan fill iyo stroke ayaa ku qoran soo marka stroke ma u baahnin waxaan rabnaa fill-ka ayaa furaysaa waxaad dalbanaysaa midka ugu horeeyo oo okay baa leedahay move toolka soo marka intaa markaa sameysid farta ayaa text ayaa tagaysaa farta meesha impact regularka ay ku qorantahay waad ka bedelaysaa waxaad ka dhigaysaa Arial ayaad soo dalbanaysaa Arial marka oo waxaan dalbanaynaa regular fartana halkan imaw color ka bedel oo waxaa ka dhigtaa madow
okay meeshan banaanka ah kali ku sii waxaad qortaa happy qor happy markaa qortid waa control a dheh marka kadib halkan imaw oo ku dhifo waxaad u imaadaa meeshaan muuska ii saaran yahay muujita halkan imaw waxaad samaysaa farta xoogaa yar ii kala bixi soo marka geeska ku dhifo korkan imaw fartan ii soo yaray xoogaa so move tool tag okay dheh kadib halkan soo drag garay oo halkan keen sidaa markaad samaysid farta mar labaad ku noqo oo meesha layerkeeda tag laba mar kali ku sii kadib meeshan balaaga ka bedel oo waxaad ka dhigtaa white halkan imaw jiid oo kor geli kadibna okay dheh kadibna move tool tag okay dheh happy sidaad markaa u qortid kadib fartan Somalia Independence Day korkeeda imaw oo kali ku sii kadib aalta adoo haya muuski yaraa cadaanka hoosanku kaaga soo baxo drag garay oo jiid saas ayaa ku koobiyeysa qaybta layerska tag textigan oo hadda adiga koobiga kuwa ah laba mar korkiisa kali ku sii waxaad ku qortaa happy independence qor independence day waan soo noqon doonaa happy independence markaa qortid control a dheh kadib farta xoogaa ii weynee kadib move tool tag okay dheh kadib fartan halkaa meelaha keen waa ujeedaa soo mahan isla iyadii aalta adoo haya kasoo drag garay koobi garay kadib layerska imaw laba mar kali ku sii kadib day qor sidaa u qor dayda control a dheh meeshan oo farta cabirkeeda wax loogu daray imaw weynee kadib move tool tag okay ku dheh oo halkaa sidaa u dhig so marka intaas la sameyno waxaan rabnaa in isla aragno shapekan oo sidan u laamaya ayaanu keenaynaa marka xageenu ka keensanaa so marka aniga hadda wuxuu ii yaalaa wuxuu igu dhex jiraa folder hadhoodii waxa waaye WhatsApp groupka ayaa noo soo dhigi doonaa WhatsApp groupka ayaad ka heli doontaan so waa soo drag garaysanaysaa halkan ayaad keensanaysaa oo kor ayaad la imaanaysaa plus copy markay kuu soo baxdo ayaad isticmaalaysaa oo kusii daynaysaa meeshaas so marka waa png anigaa hore inoogu diyaariyey wuu diyaarsan yahay so marka waad soo qaadanaysaa halkan ayaad la imaanaysaa kadib halkaa ayaad dhigaysaa soo markays so intaadan dhigin ka hor qoraaladan ayaan xoogaa waxaan ku sameynaynaa waa hoos ayaan usoo dhiganaynaa sidaas ayaan u highlight garaysanaa hoos iisoo dhigayaan leeyahay sorry qoraalkii caddaa ayaan kasoo tagay kulli all okay marka shapekan ayaan soo qaadanaynaa halkan ayaan ku cabiranaynaa soo ma aragtaan shapeku wuu weyn yahay xoogaa yaree xoogaa sida iigu yaree so marka halkaa dhigo halkaa markaa saa u dhigatid weli yaree uu kaa weyn yahay adigay kugu xirantahay hadba cabirka aad adigu doonaysid meelaha ku ekeyso marka so marka intaan aan mar kale soo qaato intaan aan mar kale qaato oo meelaha iigey ku dheh iyagu lafirkooda sidaas ayagoo kugu dooran yaree oo shift qabo gees ka soo qabo sidaa u yaree halkaa geyso waa hagaag waa intaas oo keliya weeye marka aad doonaysid happy independence day inaad samaysid qaabkaas quruxda badan leh ayaad u samayn karaysaa so marka haddii aad rabtid marka in aad sidan midka hadda aan u qurxiyo waa kana isagoo oo keligii markuu yahay sidan ayuu ii ahaaye sidaas haddaad doonaysid xoogaa waxaan isleeyahay armuu cashirka idinku sii dheeraadaa marka qeyb kale ayaanu kasoo samayn doonaa marka insha allah muuqaalkeenan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa haddii marka aad u baahan tahay shapekan oo sidan ah
waxa weeyaan WhatsApp groupka ayaanu soo dhigayaa. WhatsApp groupkana haddaad rabtid inaad kusoo biirtid oo aad soo join garaysid, waxaad ka helaysaa muuqaalkan descriptionkiisa ama commentiga ugu horeeya ee muuqaalkan ayaan kusoo biin garaynayaa. Marka inta aynu muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiino.